kulankan ayaa ahaa mid ay saxafiyiinta gobolka bari cabasho kaga muujinayeen isdiiwaangelin dhowaan ay shaacisay wasaaradda warfaafinta dowladda Puntland kuna wajahan dhammaan wariyaasha Puntland in ay wasaaradda iska diiwaangeliyaan taasoo wariyaashu u arkeen inay xaq u lahayn wasaaraddu inay diiwaangelin samayso maadaama ay leeyihiin ururka saxafiyiinta Puntland ee MAP waxaana nasiib darro ah horta maalin walba inay wariyaashi iyo wasaaradda warfaafinta ay haystaan annaga wariyaashi wadankaan ahay dawladda iyo wasaaradda warfaafinta doorkeena ma taqaano xeer baa la saxiixay xeer baa noo qoran oo baarlamaanka loo geeyay oo ilaa hadda ka doodadiisa ay taagan tahay oo guddi loo saaray madaxweynuhu ka warqabaa marka maalin walba in la is xagxagto oo wax sharci anagana lagu maago lagu ceersado anagoo wariyaashi wadanka oo dalkii dadka u shaqeynayna waa wax aad looga xumaado waxaan rajeynaynaa dawladdan inay ka fiican tahay dawladihii hore laakiin hadda waxa way kudka guuro qanjo u guur sida muuqata wasiir soo cadde waxaan ku sheegaynaa kaarka sheegaysa anaga sharcina uma lihid inaad tiraahdo qaata mana qaadanayno ururkeena ayaa wax walba isaga ka mas'uula isaga kaarkana siiyay haddana isaga noo cusboonaysiin karo marka waxaan ku sheegaynaa waxa fiican in aad waxyaabaha ku xagxaganayso wariyaasha aad joojiso madaxweyne adna waxaan ku sheegaynaa shalay waxa ku ololeynaysa markii ololaha soo galeysay waxaan madax banaaneynaya fikirka waxaan dadka wax madax banaaneeyaan warbaahinta waxa laga rabaa ballanqaadyadaada inaad fuliso madaxweyne maadaama aad tahay nin aqoon-yahana oo aqoon leh barnaamijkan wasaaradda warfaafinta ay soo saartay ee ku saabsan in saxafiyiintu ay isdiiwaan geliyaan oo aanu aragnay anagu haddaan nahay wariyaasha Puntland inay daba taalo in saxafiyiintu ay kaar qaataan oo wasaaradda warfaafintu ay siiso xilligay doontona ay kala noqon karto marka waxaan ka codsanayaa baarlamaanka Puntland in barnaamijkan ku salaysan sharciyada maadaama ay yihiin xeerdejinta Puntland inay soo farageliyaan oo ay arkaan oo ay eegaan oo ay ilgaara ku eegaan barnaamijkan kala haysta wasaaradda warfaafinta oo ugu horeeyo wasiir soo cadde iyo saxafiyiinta Puntland oo ay qayb ka tahay anaga wariyaasha dilayna oo xabad la dhacayna oo lugaha iyo gacmaha ka jarayna waxaan leenahay baarlamaanka 66 xubnood ka kooban ee Puntland barnaamijkaasi ma aha wax la sahlan karo mana aha wax ciyaara oo dheeldheel ah waa hadal ka soo yeeray mas'uul xasaanad leh oo idinku aad kala noqon kartaan wixii magacaabistii madaxweynaha aqlabiyad baarlamaanku uu ku yeeri karo dawladda Puntland waxaan leenahay annaga ururka warbaahinta Puntland ee MAP ayaanu ka tirsanaa aqoonsigeedina waa kan kaarkan waa MAP qof walba oo ururka ka tirsan MAP kaarkeeda ayuu wataa marka loo eego diiwaangelinta dawladdu waxay doonaysaa markay diiwaan geliso kaar inay bixiso waan is ognahay xaaladana waa la soconaa kaar hadday bixisana wariyihii wardira ee dawladda war lid ku ah oo ay dareemayso inuu xasaasiyad keenayo kaarka ay dawladdu siiso inay kala noqoto ay doonaysaa xaq waxa uu leh diiwaangelinta inay sameeyso ururka warbaahinta Puntland ee MAP haddaba waxaan leenahay wasiir soo cadde waxaad wado mudane wasiir annagu wax kale oramayne ku hirgelay maayana ka joog madaxweynaha waxaan leenahay madaxweyne shalay halgankaagii doorashada warbaahintu qayb ayay ka soo qaatay isbedelkan qayb ayay ka ahayd warbaahinta abaal raaga rag baa la kaga dhigo abaalkaagii ha ka arkeen sidoo kale wariyaasha ayaa waxay ku taageereen shirkii dhawaan ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya isla markaasina ay ka soo qayb galeen erge gaaraysa 150 ergey ee ka yimid gobolada dalka Soomaaliya kuna doortay gudoomiyihii ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed Maahir Aadan Jaamac iyo xogayaha ururkaasi Maxamed Ibraahim Macalimo sidoo kale waxaan rabaa inaan halka ka cadeeyo ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee NUSAJ waa urur jira oo midaysan oo leh hal gudoomiye oo la yiraahdo Maahir Jaamac Aadan iyo hal xogaye oo la yiraahdo Maxamed Ibraahim Macalimo doorashadoodu waxay ka dhacday magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya waxaan u sheegayaa ummadda Soomaaliyeed iyo guud ahaan caalamka inaysan jirin laba NUSAJ waxyaalaha kan hoosiiska iyo aan sii soconayna inaan cidina dhig jalaq u siinayn annaga u sheegayna NUSAJna waa hal NUSAJ doorashadeedina Muqdisho ka dhacday annagaana dooranay saxafiyiinta Soomaaliyeed baa guud ahaan doortay dawladda federaalka ugu horeeyo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo gudoomiyaha baarlamaanka iyo guud ahaan maamul goboleedyaduna waa ay aqoonsadeen dhalinyarada saxafiyiinta ee ka tagaya deegaanadan oo meelaha kale to kulamada kaga qayb galaya waxaan leenahay dad siyaasad gaar ah leh iyo idinku duuli waxay Soomaalidu ku mahmahdaan niman ku furi doonin yuuna ku rarin mid kale waxaan rabaa halka inaan ka cadeeyo shira maalmeed wuxuu ka dhacay magaalada Gaalkacyo oo NUSAJ isku sheeg ay sheegayso NUSAJ hal mid waaye haddana la aasaasay Muqdisho laga aasaasay madaxweynihii iyo ra'iisul wasaarihii iyo adduunka dhan waana aqoonsaday dadka meelaha la wareegaya NUSAJ tan ay NUSAJ
oo meelaha dadka ka wadanayo waxaas wax ka jira ma laha nusoj waa mid waana la mideysan yahay waxaa la rabaa in sharciga dadka uu qabto iyo dastuurka waxaan kaloo uga faa'iideysanayaa halkan shirki ka dhacay magaalada Gaalkacyo waxaan aaminsanahay dawladdu dabada ay ka waday waliba waxa nasiib daraa in telefishinkii qaranka u dhaxeeyay Puntland in laga sii daayo oo la yiraahdo gudoomiyaha ururka suxufiyiinta Soomaaliyeed waa wax nasiib darro ah gudoomiyaha ururka suxufiyiinta Soomaaliyeed waa Maahir waxa lagu doortay Muqdisho xogayihiina waa Maxamed Ibraahim Macalimow oo Muqdisho ayaa doorashadaas ku dhacday 27 ergey oo Puntland ah ayaa ka qayb galay oo doorashadaasi Puntland uga qayb galay si kastaba ha ahaatee wariyaasha Puntland ayaa cabasho xoogan ka muujiyay tan iyo markii wasaaradda warfaafintu ay shaacisay inay iska diiwaan galiyaan wasaaradda warfaafinta Puntland